الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولاشين جبار حسين halkaad nagala socotaan waa channelkeena Jabaar Xuseen inoo maamusha waxaan rajaynayaa in caafimaad qabtaan sida aniga aanu caafimaad qabo. Allah subhanahu wa ta'ala caafimaadka hayno ziyaadiyo inta xanuunsan xanuunka ka dulqaada caafimaadka uu bedelo dambigeen dambi waalidkeena iyo dambiga muslimiinta waxa dhaafad dalkeena. Allah subhanahu wa ta'ala hayno hagaajiyo. Allah subhanahu wa ta'ala dadkeena qulubtooda ha isku keeno. Allahumma amiin, Allahumma amiin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي أمرها نوصل غير الصومالي هذانا يعني وإذا شاقي إنكارا نوجو هبستي إن سيدان يعني سبحان الله عقلك السليم أو فهمي كرا ودريمي كرا حالة الصعوده وحيابها الصعودة إن حبلقنك يعني سبحان الله aada ugu xumahay aada ugu xumaa in dhibaatada heerkan la eg weliba tan aan ku kasbanay anaga taas ku kasbanay subxaanallah. U fiirso qof Soomaali ah kula soo hadlay qof horumar inaan gaara rabaa ku dhahayo malahan nin hadduu yaa wuxuu ku weydiinaa hadduu guur iyo mustaqbal u baahan yahay xataa hoostaada ku weydiinaa aqliga dhan hoosto ka galay subxaanallah. marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala hana dhowro ilaahay hana xafido Soomaali hadaan nahay kuwa kan ka shaqeysiya ilaahay subxaanahu wa ta'ala hanaga dhigo. اللهم آمين. runtii shalay ilaa daraad waa arkay shalay umalena ilaa isaakay in oo la wadwaday gabar oo 3 gabdhood isugu tageen طبعا hadda u kuur galay marka saakay maba arkin gabar ay dhahday waxa la waday ma aragtay gabar kale ma arkin dhahay anaba iska mashquulsana maxaa arkaa طبعا وكما سيهين dadka iso sheegayna hadana oo ay dhahan Jawaar sidaas wax u jiraan Soomaalida horta ayaga iscuna ayaga isruuga maanta qof kale ajaanib ah hadii la dhaho anaga tabar uma hayno qofka Soomaaliga laakiin aad ugu adagnahay aad ugu adagnahay laakiin dadkaas kuma jiro qof Soomaali oo u duceeya maahay Allah afkeyguna kuma taaga farteedana iska badaaba ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad hana wada siiyo oo wada xanuunsanay dad xanuunku wada dhacaanahay burburka dalkeena ka dhacay shakhsiyan ka Soomaali ahaan saameyn nagu yeeshay aad saameyn nagu yeeshay hadday family problem noqoto oo qaar ku dhacay hadday noqoto qaar dal ahaan u saamooway qaar qabiil ahaan u saamooway qaar yani subhanallah wax qofba dhibaato ba meel qaasa ka haysato saameyn kaga yeelatay dhibaatada dadkeenana ma bartaan psychology ma bartaan Allah musta'an طبعا حال نفسية أما عقدة نفسية وسيدة عذرك oo loo daaweeyo sida dhikarka sonkorta waxyaabahaas cholesterolka loo daaweeyo maca dalika madama dhaqaatiir badan dibadaha wax ku soo baratay hadana arki maysid qof psychology wax u bartay haday noqoto dadka dibadaha ku dhasheen haday bartaan af Soomaali kuma hadlayaan qofka Soomaaliga wuxuu u baahan yahay qof af Soomaali kugu la hadla af Soomaali kugu shabaco oo kaga dhirgo in qofkan uu la sheekaysto ama qofkan uu wax u sheego markaas dadka waxay ku leeyihiin xataa qaar oo luqadda kale ku bartay gada Soomaali inta badan waa waxa arkaysa dadka psychology bartay oo dalka oo reer galbeed ku dhashay in xijaabka kale aysan ku wanaagsanayn markaas waxa lagu mashquulaa xijaabkeeda lagu mashquulaa adi qoftan way ku daaweynaysaa daawadeeda ka fiirso daawadaada ka fiirso maxaa ka galay wala tazir waziratu wizra ukhra ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi uu qof leeyahay qof kale ma saarin dambigaaga adiga u baa xambaarsanaysaa keedan ayada u baa xambaarsanaysaa maxaa ka galay daawadaada ka fiirso marka sidaas darteed waxay doorbidaysaa in ay luqad Soomaali aysan ku hadlin qof Soomaalina aysan daaweynin oo dadkaas kale meeshay wax ku baratay iyo dadka u dhashay inay doctor ay u noqoto macal asaf aada ugu xumahay فالله مستعان intaas ka bacdi gabdho saddexda gabdhood oo London gabadha isugu tagay waliba wadada dhexdeeda ku garaacay maxaa la ii sheegay hada gabadha la garaacay iyo saddexdaas gabdhood in ay yihiin ilma adeero tanto ka darana muqdishay ka dhacday insha Allah next Allah musta'an next qiso ay idinkaaga dhiga ama qisada ku xig hado Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo waxa marka gabadha
oo la garaacay oo dhiiga ka da-ayo oo wadada dhexdeeda dharka ay ka siibayaan oo subxaan allah damiirkii aaway, dadnimadii aaway, soomaalinimadii aaway, islaamnimadii aaway, muslimnimadii aaway, dhaqankii aaway, wanaagii nalagu soo koriyey nalagu soo rabeeyey aaway, wixii oo dhan halba caad lagu lisay noqdeen walciyaadu billah. marka waxaa la gabadhan sidaas loo garaacayo un waxa laysku haysto waxa waaye wax ku saabsan arimo oo nin iyo waxyaabahaas. naag hadday isdagaalayso wax kale iskuguma qabsato nin. ilaahay subxaana watacaala raggaan adduunkan dhigay ma garanayo hal nin wixii layskugu qabsado. haddii qofkan qof kale ay kaa wadato mac salaama, ilaahay subxaana watacaala rag intaasoo rago ilaahay subxaana watacaala dhigay. iska fur maxay dhahdaa dalaaqdaada ka qaado, ama haddaa u sabri kartid u samir, haddaa u sabri weydan iska fur mac salaama fi amaanillah ifur dheh, noloshaada kala karaaso. maxaa dhiig islaameed, maxaa dhibaato, maxaa intaas ku gelina, maxaa naftaada problem ugu soo jiidaysaa. ilaahay subxaana watacaala adduunkan wuugu keenay qurux iyo wanaagu kugu keenay, ku noolow quruxda iyo wanaagu ilaahay subxaana watacaala kugu keenay. haddaadan u noolaan karinay dee duurkaas ku noolow ma fahmaysaan. marka gabadhan oo la garaacayo, la dilayo, dhiigeeda da-ayo, dharka laga bixinayo, saddexda gabdhood isugu tagayso, saddexda waa walaalo ku lahaa. bal fiiriya u fiirsada, saddexda gabdhood waa walaalo, weliba ilmo adeera ah. gabadhan oo la dilayo ilmo adeeray leeyihiin. gabadhan la dilayo iyo ayaga laba walaal ah kala dhaleen. bal u fiirsada qisada meesha u socoto. laba walaala kala dhaleen. kaaga sii daran gabdhaha saddexda gabdho nin mid kamid ah ninka qabo gabadha waxaa ka dhigayay ama kaamero ka duway ma aheeday ama dharku ka dhigaya. subxaan allah walciyaadu billah. yacni damiirkeena heerkuuna gaarsiiyey, dadnimadeena heerkayna gaarsiisay, wanaagii aan lahayn soomaalinimada ahayd meeshayna gaarsiisay. aslan waa ogaaba qof soomaali ah, qof soomaali hortiisa dagaal haku galaya mar walba idin sheega, leano wax aan arka waayo, wax la ii sheegay ma wax aan ishaydaas asaara waa qof soomaali hortiisa inaadan dagaal ku gelin. okay, afar qofood hal rag ah iyo 3 dumar ah caqligooda iyo damiirkooda siduu ku siiyey gabadhan ina adeertooda ah, gabadhan walaashooda ah, intay isugu tagaan xataa hadday qaldan tahay, xataa waxa lagu tuhmaya hadday sameyday, xataa haddii waxa lagu sheegay ay sax yihiin, sidee damiirkooda iyo dadnimadooda uu ku siiyey in gabadhan wadada dhexdeeda weliba ay dharka kaga dhigaan, ay siday rabaan kaga yeeshaan, weliba kaamera ay ka duubaan. sidee damiirkooda iyo caqligooda uu ku siiyey. ma kursiimadeena qaldantay haddaa hooyooyin nahay, ma wadankii aan tagnaa dadkiisa la noqonay. dabcan wadankaan tagno dadkiisa ammaan iyo salaam ay ku nool yihiin. waa aragtaan kaniisadaha iyo masaajidka inay isku agyaalaan, isku dhow yihiin. maca daalika masjidkan aadaanku ka socdo, kaniisadana maxay dhahdaa wax baas ay akhrisanayaan ka socdo, haddana ammaana lagu kala nooyahay. qof walbo diintu caabudayo caabudaa, qof walbo diinta haysto uu caabudaa. anagana masaajidka ilaahay subxaana watacaala na amra galna, ayagana kaniisadooda oo maxay dhahdaa caqligooda iyo damiirkooda siiyey in ilaahay u shirka yeelaan ay galaan. maca daalika waa layska warhayaa, jiiraana layahay, darisaa layahay, walaala yihiin, jinsiyadaasaa ka dhexeyso, baasaboorkaasaa ka dhexeeya, luuqadaasaa ka dhexeeya, ammaan iyo wanaagaa lagu kala noolyahay. anaga dad muslimiina nahay, hal diin haystaan nahay, hal dhaqan haystaan nahay, hal luuqad haystaan nahay, haddana maca daalika isma fahamno. isfaham waa wax la dhahaa noogu dhacay. hanoogu dhacee isfaham waa damiirkiina ma celiyo, damiirkiiyou na celinine dadnimadiina ma celiso. dadnimadiini inaysan na celinine diintii iskaba dhaafa nababa celiso. taasba qabiilkii xitaa nama celiyo. qabiilkii oo aan dadnimadeeni ka jeclaysana, diinteena ka jeclaysana, xataa nama celiyo. marka soomaalida hoog iyo halaaga ku dhacay. soomaali haddaan nahay hoog iyo halaaga noogu dhacay. wallaahi qasaman bilaahi hoog iyo halaaga noogu dhacay. waxyaabaha muqdisho laygaga soo sheegay, waxyaabaha soomaaliya laygaga soo sheegay, caqliga saliimka ah ma qaadan karo. hooyooyinka qaar waxay leeyihiin alxamdulilah, gabdhahooda waxay soo looyihiin alxamdulilah inaa maanta waxa dhacay aydan dhex joogin, alxamdulilah inaa qurbaha joogtaan. heer hooyooyin heerkaas ay gaaraan maxaa keenay?
waxyaabahay ishooda saareen waxyaabahay indhahooda ku arkeen ayaa gaarsiiyey. taasna waa kasoo hadli doona hadduu ilaahay subxaana watacaala raalli ka noqdo. marka gabdhahan damiirkoodii iyo dadnimadoodii u diiday inay gabadhaas walaashooda ah aysan sidaas ku sameynin, weliba ninka ragga asigan dhexjoog u ah, garab joog u ah, ama kaamiroheenka u ah, oo damiirkiisa heerkaasi xataa yac uusan u dhihi waayay xaaskiisa iyo walaalahooda. ma fahmaysin? oo ayagiina gabadhii walaashooda ahayd in adeertooda ahayd, weliba adeerkooda dhalaal lahay, inay sidaas sameeyaan damiirkooda iyo dadnimadooda siiyey, raallina ugu noqday. aada ugu xumahay. waxaa maqlay damiirka waa idaa maata damiir khalaas waaye, jirkoo dhanaa dhintay. damiirka qofka insaanka waxa kaliyo hagi kara damiirka waaye. damiirka hadduu dhintane khalaas qofkaas asigoo dhan meyd waxa u madhaam. marka annaga damiirkeen maa wada dhintay. damiirkeen macquul heer 4 qofood hal saf ay noqdaan, hal qofood oo kasoo horjeesto saddexda kale la waayo, 2 qofood oo kasoo horjeesta saddexda kale labada kale la waayo, oo yacni qasab ay naftooda ugu dhigan inay gabadhan dhibaato gaarsiiyaan, weliba kaamir ay ka duubaan. damiir xumo heerkaas la eg inayna soo mari doonto ma u malaynayo. damiir xumo heerkaas la eg inay soomaalinimo ay dhex joogto ama soomaalida ay dhex taalo uma malaynayo. aada ugu xumahay damiirnimo heerkaas la eg inaan gaarsiisanahay. ilaahay subxaana watacaala hana sugo, hana hadeeyo. ilaahay amuuraha noo saqiiro. runtii xaalad adagaa ku jirnaa Soomaali haddaan nahay. ciqaabta meesha ugu darneed ay taagan tahay, ilaahay subxaana watacaala hanaaga dhigo ciqaabtan aan hadda marayno tan ugu dambeysa. ilaahay subxaana watacaala hanaga dhigo oo aan marno. runtii waa ciqaab halisaa ku jirnaa. qadabaa noogu socdo, qadabkan ugu xumaayaan aa ku jirna. haddaa arki jirteen dad biyo lagu halaagay, haddaa arki jirteen dad dab lagu halaagay, haddaa arki jirteen dad dhulgariir lagu halaagay, annaga gacanteena laysku kiin halaagay. annaga gacanteena halaaga gacanteena isugu geysanaynaa. ilaahay hana sugo, ilaahay hana asturo. ilaahay subxaana watacaala amuurheena noo saqiro. allahuma aamiin. waa walaashiin Jawaahir Xuseen oo idin leh. kusoo dhawaada channelkeena, subscribe saara, asxaabtiin la wadaaga wixii ra'yigiina commentiga noogu reeba, like-tan dhiirgelina tahay, like noo saara. kheyr iyo caafimaad iyo barwaaqo idin rajayna. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.